السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاashii Nafisa Abdidoon maanta waxaan jeclaystay in aan idin la wadaago Ombasif opportunity ama fursadda ee shirkadda Ombasif oo taas oo aan anaga nahay founders ka mid ah shirkaddaani waxay soo bilaabatay 4 sano ka hor waxaana ma aragta 4 sano la dhisayay product iyo maxaa service aad iyo aad u cajiiba oo aan ogahay adduunka dhan inay wax ka bedelayso maanta marka maxaa igu kalifay in aan YouTube soo galo oo aan waligay soo galinin oo aan soo gudbiyo fursaddan waxaan u jeedaa opportunity-ga meeshan ku jira iyo fursaddan maxaa la yiraahdaa maanta qaaliga ah oo dadkayga ay ka baahan yihiin ama banaanka ka taagan yihiin hadda cid iskama diiwaan gelin karto oo waxa weeyaan qaybtii founderska wuu xirmay laakiin waxaa furan fursadda resellerka oo mar dhow insha Allah bisha August dhamaadkeeda furmaysa taas waxaan jeclaystay in aan qof walba oo Soomaaliya u maadaama ay fursaddii ay imaanayso waxaan jeclaystay dadkayga Soomaaliyeed ayagoo ka jiifa oo aan war u haynin ama aan ka warqabinin in aysan fursaddaasi suuqa imaanin hadhowna uusan sidaas ma aragtay uga aysan ma aragtay uga gaabinin fursaddii ay ka faa'iideysan lahaayeen walaalayaal shirkaddaani toole waxa ay soo wadaa waa wax adduunka dhan wax ka bedelaya ma aha waxa aan ka hadlayaa product yar oo la iibinayo cunno yar oo dukaan la dhigayo ama wax yar oo maxaa la yiraahdaa alaabtii la isku caateyn jiray oo aan idin soo gudbin jiray ma ahan waxa weeyaan waa digital product waa alaab u dhigmata maanta YouTube-kan aan isticmaalayno waa alaab u dhigmata maanta Facebook-kan aad maalin walba isticmaashid Snapchat-ka iyo TikTok iyo waxaan social media maanta aad isticmaalayso ayay u dhigmadaan alaabtan ama ay ka sii double jibaar ay ka yihiin mid walba hal product oo ka mid ah Ombasif ayaa wuxuu u dhigmaa maantay maxaa la yiraahdaa social media aad isticmaalayso halka product ayaa social media oo dhan kaaga filan one log in hal mar oo aad saxiixdo ayaa kaaga filan social media oo dhan intaad marna YouTube u carar lahayd mar TikTok u carar lahayd mar aad Facebook u carar lahayd mar aad maxaa la Telegram aad wada gali lahayd halka product oo hal meel ah oo one log in ah ayaa kaaga filnaan doona ma qof aan isticmaali doonin ayaa jira productyaashu way kala duwan yihiin aad iyo aadna way u kala qaalisan yihiin wana u cajiibsan yihiin marka walaalahayga waxaan jeclaystay in aad linkiga aan hoos soo dhigi doono aad maaragta fiirisaan hadda la iskama diiwaan gelin karo laakiin inaad ila socotaan update-ka aad la socotaan meesha shirkaddan hawsheeda ay maraysa aad la socotaan maalinta insha Allah August andigeeda la soo launching gareeyana aad noqotaan dadka ugu horeeya ee ka faa'iideysta amaba sii ogaataanba inaad ogtihiin waxa aan gacanta ku haynaa waa muhiim in markii shirkaddii suuqa timaado oo dadkii ummadihii kale ka faa'iideystaan oo qof walbaahi uu ka dhargo oo qof walbaahi uu ma aragtay maanta adduunyada way isbedelaysaa maanta waxaad ogtihiin in maantay maxaa la yiraahdaa 2030ka la yiraahdaa dukaan dambe adeeg laga doonanayaa ma jiro wax walba digital iyo online bay isku bedelayaan marka inaad maantay sii dhaqaaqdo oo kabahaaga maanta sii gashato oo aad maaragtay aad maantay sii kasii warqabto waxyaalaha socdaahay waa muhiim jiddan waliba dadka dhalinyarada ah oo waxaan u baaqayaa fursadahan oo kale ay u yihiin ma aragtay opportunity-ga oo ka faa'iideysan karaan oo maantay maaragtay 24 saac waxa laga yaabaa 8-9 saacadood oo time-kaaga kamid ah inaad Facebook iyo social media iyo TikTok iyo Snapchat aad walaaqaysid laakiin aadan ogeyn opportunity-yaasha yaala oo adiga oo isticmaalaya aad lacagna lagu beegareynayo insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa walba oo marka Soomaali ah ama ma aragtay afka aniga aan ku hadlayo maanta fahmaya waxaan rajaynayaa in uu arintaas u daymo la'aanin ee uu ka warqabo boostingka ama waxyaalaha aan soo dhigayno weligay Allah kuma aanan fakirin inaan YouTube wax ku duubo laakiin markaan arkay waxa meeshan ka soo socda in aan walaalahayga gaarsiiyo oo aan u sheego oo aan la share gareeyo oo keligay inta ma aragtay nicmadan jeebka gashto oo jeebkayga buuxsad aan iska seexdo runtii damirteedu way siin weysay waxaana go'aansaday inaan u soo banbaxo in aan idin soo gudbiyo fursaddan idin la wadaago sida aniga aan u arkay oo dad Ilaahay khayr ha siiyo ay la soo wadaageen adinkana ay idin la sii wadaago runtii muddadii hadda aan soo hayay barnaamijkan cidna lama share garaynin sababtoo ah barnaamijka waxaan ogahay inay Soomaali lacag jeceshahay oo haddaan lacagtii wali banaanka imaanin aysan jeclayn inay 4 sano u dulqaataan sida ummadaha kale ay u dulqaadanayaan laakiin
in way maanta way soo bambaxday oo alxamdulilah bishan august andhigeeda ayaa lasoo launchin garaynaya launchinka ugu horeeyey ayaa dadkii ma aragtay qofka waxaa loo samayn doonaa biidni illaahi tacaala domain number ama domain website baan ka wadaa ayaa qofka loo samayn doonaa domain websitekaas marka lagu sameeyo ood magacaaga la baxdo productigaaga digitalkan halkaasaa lagu gelinayaa waxyaalaha cajaa'ib kale waxa weeyaan adiga waxaad qabanaysaa maba jirtaba wax walba artificial intelligence ayaa kuu qabanaya website-kii baa lagu create garaynayaa maxaa la yiraahdaa productigii baa lagu suuq geynayaa waxa la yiraahdo traffic maanta waa taqaanaa waxyaalahan xayeysiiska ah oo hadda markaad videogan daawanaysid waxaad arki doontaa waxyaalo xayeysiis ah oo lagugu soo tuurayo oo lagugu qasbayo inaad daawato waxaasaa la yiraahdaa traffic marka target traffic ayaa lagu samayn doonaa productigan waa lagu suuq geynaya adiga wax lagaga bahaya ma jirto waa down for you wax walba waa lagu samaynayaa marka walaal ama aan ogahay dadkaygu inay maaragtay skills badan aysan lahayn oon ogahay xagga maaragtay suuqgeynta iyo digitalkan iyo suuqyadan inaysan ku wanaagsanayn maadaama wixii lagu qabanayo oo down for you ay tahay oo wax walba adiga lagu samaynayo runtii waa ka ahaan waayey in aan inta fursadan arkay anaguna aan kaligay ka faa'iideysto ama inta ila midka ah oo qof iyo labada ah oo ka faa'iideysta ay ka faa'iideystaan waa in aan wixii fursada aan aragnay dadkaygan aan la share garaynaa productigaanay toole aan ka hadlayahay waxay weeyaan virtual waxa loo yaqaan product iyo physical product labadaba physical productiga waxaa ka mid ah physical productiga data center meelaha ma aragta lagu kaydiyo xogta ama warbixinada lagu kaydiyaa ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa virtual kana sida platformkii social mediahii waxyaalihii sida zoomko kala ahaa maasha allah productigu aad bay u farabaday maadaama adduunkanay toole maantay uu ku socdo xawaaro dheeri ah oo uu ku socdo si degdeg ah uunan maaragta maanta u gudbayo wax walba ay digital isku bedeleen lacagtii maanta waad aragteen maanta EVC plus iyo maxaa la yiraahdaa waxa lagu tuuraa lacagihii si yar oo fudud wadankii waad aragtay maanta saasaad dhiiq meel walba ugu siisanaysa wax walba waa digital ma jirta lacagtii la taaban jiray oo aad maanta taaban kartay warqada ahayd oo Soomaaliga ama ahayd ama luqadaha kale wadamada kale maanta ma jirto wax walba mobilkaaga ku wadataa dhiiq baad ku siisanaysaa meeshii maxaa la yiraahdaa aad u baahan tahay marka maadaama wax walba ay digital isku bedeleen lacagii ay isbedelayaan adduunka isbedelayo productyaasha isbedelayaan businesskii wax walba online isku bedelayaan annaguna in aan ka qayb qaadano oo fadhiga ka kacno oo aan adduunkan wax la qabsano shirkadan aan ka sheekaynaya ma aha waxa aad garanaysay taqaanay ma ahan waa waxa weeyaan subxaanallah waxa aan ka sheekaynayo website-kan linkiga hoose soo dhigaya bal adinku isku daya qofkii luqadda yaqaana xitaa dada luqadda aqoonin wuxuu leeyahay wax walba translation baa loo suubiyey waxyaalaha cajaa'ibka shirkadan ku tahay waxa kamid ah wax kasta translation baa loo sameeyay luqadda waxaad sameynaysaa meesha koraad saa usoo jiidaysaa luqaddaad dooranaysaa af Soomaali baad ka dhiganaysaa wax kasta okay marka maantay maba noqon kartaba excuse in uu qofku yiraahdo okay waxaan ma soo fahmi karo waxaad ka sheekeynaysaa ma fahmayo laakiin afkaaga Soomaaliga ayaad ku turjumanaysaa kadibna waad ku soo akhrinaysaa markaad fahantana insha Allah ta'ala launchingka maalinta resellerka uu imaanayo ayaad ka faa'iideysan doontaa tuning in kasoo qaybgal fursadaas ha seegin yeysan ku dhicin fursadaasi adiga oo ka hurda ama aan ka warqabin waajibkayga waxaan filayaa anigu inaan gutay annagu waajibkayga maanta waxaan rajaynayaa maadaama aan aniga oon ku talagelin weligay inaan YouTube soo galo maanta aan darta u soo galay aan is iri walaalkaaga Soomaaliga ama walaashaada Soomaalida ah oo hooyada ah sidaadoo kale fursadan uga faa'iidee ha maqasho ha aragto ha ka warqabto ha soo gasho ama ha iska dayso iyada istiqiyaar leh aniga maantay Ombasif ama shirkadan aan ka sheekaynaya iguma qasbayso wax inaan suuq geeyo iguma qasbayso multi marketing maba ahanba ma aha maanta haddaan kuu soo sheegayo in aan dhaqaalo kaas samaynayo ama aan leeyahay okay productigan haddaan soo iibgeeyo waa maaragtay waxbaan ka helaya maaha arrintu sidaa waxa weeyaan waa xil isaaris waajibaad ah oo maadaama aan arkay opportunitygan adiguna inaad aragto kaliya inaad ila aragto kaliya inaad ka faa'iideysataahi waxa weeyaan waa adiga iyo choice-kaaga laakiin inaad aragto oo aan aniga kaala baqiilin oo aan kaala seexan waa intaa kaliya message
waxa ka dambeeya waxa weeyaan waa adiga iyo choice-kaaga haddii markaa adigu aad inta akhriso oo website-ka hoosan kuu soo dhigaya ee aad fiirfiiriso aad u aragto fursaddaani inaynan ahayn mid aad adigu ka faa'iidaysan karto sababtoo ah qofka ilaahay wuxuusan u qorinin kama faa'iidaysan karo wax walba waa qoraal rabbi marka qofka bariiskiisa laga qoray keliya ayaa ka faa'iidaysanaya marka fadlan haddaadan adigu ka faa'iidaysan karin ama aad opportunity u arki karinin walaal kale oo ka faa'iidaysan karta oo hooyo ah oo laga yaabo sidaydo kale ilmaheedii inay rabto inay ilaashato mustaqbalkeedana ay dhisto iyada oo ilmaheeda haysata meel qurux badan ay ku noolaan karto mustaqbal qurux badan samaysan karta fadlan u gudbi oo message-kan u dir oo u boosti garee oo bal iyadu waxaa laga yaabaa waxaad adigu fahmi weydo qofkan walaalka inuu fahmo kana faa'iideysto kaagana duceeyo waxaa laga yaabaa dadkii kale oo maanta soo gaarsiiyey dadka annaga maantana soo gaarsiiyey qaar qof waxaa jira inta wax ku soo gaarsiiya asaga uusan ka faa'iideysan karin waana caadi ilaahay baan u qorin bariiskaaga meel aan ilaahay ka qorin kama cunaysid marka waxaa insha allahu tacaala idiin rajaynayaa inuu qof kasta oo soomaali ah uu arrintan ka faa'iidaysto hadduu ka faa'iidaysan karo hadduunan ka faa'iidaysan karinna walaalkiisa kale oo ka faa'iidaysan kara oo dhallinyarada ah oo shaqala'aantu hayso oo waddankii ku wareersan oo tahriibka ka fakaraya oo ka fakaraya sidii uu maantay waddankii kaga dhoofi lahaa waddankiisa hadduu qani ku noqon karo ama dhaqaala ku samayn karo ama horumar gaari karo inuu ka taga ma rabno marka waxaan rabnaa in ay dhallinyaradayadu waddankooda joogaan ee businesskan ka faa'iidaystaan opportunity-yaashan maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nala soo doontay ay iyaguna sidaan annagu u aragna ay iyaguna u arkaan uga faa'iidaystaan u maaragtay xibin kama noqon karaan oo waxa weeye xibin ahaanshadu way dhammaatay laakiin reseller ayuu qofku noqon karaa ama dib u iibiye message-kaygan koobaan rabaa intaasaan ku soo koobayaa qofkii doonaya in uu ma aragtay baara shirkadaas linkiga ayaan hoos u soo dhigayaa qofkii raba inuu ma aragtay afkiisa ku hooyo ku aqriya oo meesha uu ma aragtay turjumaada haddaad lacala garan weydo telefoonkaygan meesha kuugu dhaafayaa message baad ii soo diri doontaa whatsappka markaad iiga soo dirto kadibna video yar oo kuu sharaxaya sida aad luqadda u bedelanayso sida meel walba aad u fiirinayso ayaan kuu soo diri doonaa bal just have a look around adiga just geesaha bal soo eeg fiiri haddaad u aragta opportunity fadlan opportunity-gan inuu ku dhaafo kulama jeceli walaashaa kula jecel khayrkan ahay ka faa'iidayso marka intaasaan rabaa inaan idin soo gudbiyo aad iyo aad u mahadsantihiin message-kana waxaan jecelahay inuu dad badan gaaro si ay dad badani fursadaas uga faa'iidaystaan oo aysan ugu koobnaanin qof iyo labo muhiimadeeda waxa weeyaan inaan message-ka gudbinno taas